بسم الله الرحمن الرحيم أنا تليها الدكسية توبرك دفاع حيبها سوماليات مارينو oo nool magacaabay bishii Maarso kowdeedii markaan maqalnay baaqi ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre uu baaqay uu yiri rag walba ama wasiir walba ama agaasimo walba meesha uu joogo in uu bilicda uu ka bedelo oo sanad guurada soo socto luuliyo oo 60 jirsatay in looga qayb galo wax qurxoon baan annagoo askar ah isku daynay saraakiishii ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed in aan meesha aan deganahay aan quruxsano oo ah dugsigii tababarka iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed anigoo ka ah taliye waxaan go'aansaday feeskii koowaad inuu hadda ii soo gabagaboobo oo aan dhameeyay haddana aan ku jiro bari wixii ka dambeeyana aan bilaabo feeskii labaad intaan la gaarin sanad guurada luuliyo aan soo afjaro ilaahay idinkiisa anagoo tix raacayna باقي رئيس الوزراء حسن علي خيري oo soo gudbiyay sanad guurada lixdamaad ee luuliyo in aan uga qayb galaan ku waji tagnaa annagoo askar ah xoogga dalka Soomaaliyeed matalayna ciidanka badda oo ayaantan si aad looga seexday dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in ay ciidamada badda ay fiiro gaar ah ay u soo yeeshaan oo hal mar luqantooda ay u soo jeediyaan waxaana taladaasi ka helnay taliskeena guud ee Admiral Abbas taliyahana qara Allah siiye asaga ayaana indhaha noo fiiqo yiri nin walba meeshuu joogo hore u socdo maadaas asaas kale waxaan halkaan hambaliyo uga direeyaa telefishinka qaranka iyo idaacadda raadiyo Muqdisho waxaan baaqi labaad u direeyaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre in uu sida degdeg la noogu soo gurmado ciidanka badda oo laga seexday ayaantan ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu qoortiisa xaggeen u soo jeeday oo uu arkaa sida uu infanteriga u dhisaayo uu annagana noo dhisaa maadaama baddeeni Soomaaliyeed ee iska goranaya cadow shisheeye kalluunkeena ay qaadanayaan mushaarka ciidanka badda mushaarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama afarta ciidan wuxuu ku jiraa badda haddaan la dhisin oo horumar ma leh waxaan codsanaynaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ka codsanaynaa in ciidanka badda asaga iyo ra'iisul wasaarihiisa mudane Xasan Cali Kheyre in ay ciidanka badda noo dhisaan ay u soo jeestaan si hagar la'aan haddana waxaan taliye oo daasatahay ciidamada badda marka laga hadlayo dabcan shaqo usbaahayaan xeebaha gobolka Banaadir oo dabcan ay ku taalo dekada weynada Muqdisho iyo sidoo kale airport ku yaalo sidee ayaa u ka torooshan ka ciidanka badda ku ah abnigeed waxa qaabilsan ciidanka badda navy haddana kula subax walba afar doomood baa marka ilaa baalkii cadal oo isdhaafa abnigeeda suga safaaradii dhan baa ku yaal xeebihii dhan baa ku yaal abnigeeda sugan ciidanka badda navy ma jiraan waxyaabo aad si gaar ah isha ugu haysaan aad jeceshiin in la idinka taageero maxaa ka mid ah tayanta ciidamada qalabeenta ciidanka badda waxbarashada koorsooyinka intaa waa jecelna aad baa waxa uga liidanaa xagga tayada baalka qalabka badda ciidanka badda ama gaadiidka badda ha noqdo ama gaadiidka bariga ha noqdo haddaynu ku soo laabano dhismahan aad gacanta ku haysaan dabcan marka dhisme laga hadlayo deema la sahlana oo wuxuu u baahan yahay maskax maal iyo muruq u baahan yahay haddana waxa muuqata inaad shaqo culus qabateen shaqadan yaa kugu dhiiri galay taliyaha ciidanka badda ayaa kugu dhiiri galay maxaa ku qabsoomay hadda waxa feeskii koowaad baa ii soo afjarmay maxaa qabateen waxaan qabanay hool ay seexanayso 600 oo askari oo lagu talagalay askarta dibowga ileen waa meeshan waa dugsiga tababarka difaaca xeebaha ee badda Soomaaliyeed 600 oo askari meel ay seexanayso ma kula yarta adiga dhismaheeda iyo wanaajinteeda iyo baalkii ayadoona aan saraakiisha ciidanka badda aan hormuudka u ahay ma ahane wax kale oo tabaracad dawladda aan ka helna ma jirto annaga isku tashanay mudane Xasan Cali Kheyre oo yiri ra'iisul wasaaraheena oo yiri hal isku tashto nin walba meeshuu jooga quruxsado
intaasaan annaga u jiray rag iskariix baan ku jirnaa ilaahay idankiisna waana ka qayb galaynaa ballanteena waa baalkii sheeg bisha 6 ee Juun iyo maalinta xorriyadda iyo annaga xorowaan ku darsanaynaa waxa kaliya aan ka codsanaynaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xasan cali kheyre in ay ciidanka badda noo tayayaan mushaaraadka afarta ciidanba badda ku jira baddeeni waa la iska goranaa cadow shisheeyaana cadowga gudaha cadowga shisheeyaa ka daran